Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Misku aragtay ciridka oo booskiisa ka guura, ilkaha oo ku liqliqda ama jiridkooda soo muuqda, ciridka salkiisa oo kuuskuus yeesha ama barara, sidoo kale ilkuhu ku saliidiyoodo, qabow, kuleel iyo macaanku ku dhiba, ciridka oo ku dhiiga iyo afka ku shiira. Haddii jawaabtu haa tahay, casharkan adigoo kugu socda ay ka faa'iidayso lana wadaag bulshada. Ciladan waxaa loo yaqaanaa dib u gurashada ciridka, afka qalaadna lagu dhaho gum recession, taasoo macnaheedu ah ciridkoo shuuqo dibna u sikada kadibna ilkaha jiridkooda oo soo muuqda. Waana cilad aad ugu badan bulshada, si joogto ahna aan ugu aragno qaybta ilkaha, waqti dambena lagu baraarugo. Waxaa ciladan keena caabuq ku dhaca meesha ciridka iyo ilkaha iska galaan, taasoo ay keento bakteeriyo ciridka dhamayso, waxaana loo yaqaanaa ciladan periodontal disease. Waxyaabaha kale oo keena dib u gurashada ciridka waxaa ka mid ah: 1. Ilkaha oo xoog loo cadayado ama ciridka dhinaciisa loo cadaysto. 2. Ilkaha oo aan joogto loo nadiifin, taasoo jeermiska u fududaynaysa inuu meesha ku noolaado. 3. Ilkaha oo la isku riiqo xilliga hurdada, iyadana way keentaa ciladan. 4. Ilkaha oo isdhaafa markii afka la isku qabto, waana cilad keenta in ciridka cadaadis fuulo kadibna booskiisa ka sigto. 5. Sigaar cabista iyo tubaako cunista waxay dhameeyaan ciridka. Waa muhiim inaad la xiriirtid dhakhtarkaaga ilkaha si aad u ogaatid ciladaada waxa keenay, heerka ay marayso iyo xalka ugu habboon. Qaabka loo daaweeyo ciladan waxaa ka mid ah in ilkaha jiridkooda la nadiifiyo, jeermiskana laga dilo, kadibna loo sameeyo waxa loo yaqaano scaling and planing si looga hortago in jeermis kale meesha ku dhasho ama ku hoos noolaado ciridka. Xaaladaha qaar waxaad u baahan kartaa qalliin ciridka booskiisa lagu soo celinayo. Ugu dambeyn, ciridka oo booskiisa ka sikada waxaad kaga hortagi kartaa adigoo ilkaha si joogto ah iyo si sax ah u cadaysado, joojiyo isticmaalka sigaarka, qaadka iyo tubaakada, xirta cinjirka, ka hortaga isku riiqista ilkaha habeenkii, dhakhtarka ilkahana 6dii bilood ama sanadkiiba mar aad la kulantid. Wixii su'aalo ah noogu soo gudbi qaybta comments-ka ee muuqaalkan. Waana mahadsantahay.